runtii joog aad u qurux badan yahay anaga qorbaa ka imaanay waxa igu dambeysay inaan ku iido magaalada Muqdisho muddo ku dhawaada 12 sano mana filayn qaab noocaan oo kala inaan u ciidina laakiin runtii si qurux badan noogu bilaawday maalinkeena si qurux badan aad u qaadanayna Daarusalaamna inaba caadi maahan marka soo laabanay macna waxyaabo badan aan isdheeyna ama yani heli doontaan ma heli doontiin laakiin waxaan noo soo baxday in wax walba halkan laga heli karo hadduu aan la zoogi hadduu aan la meesha ciyaalku ciyaar laayeen haddii aan lahayn raadidka ciyaalka ay kori laayeen marka iimaylihii lagu nasan lahaa waxaa moodaa wixii dhan all in one in hal meel isku keena boqolkiiba boqol aad iyo aad way soo kabanaysaa waxaana moodaa wax walba oo micnaha qof family ah oo ilmo dhala oo niidis ku hayn lahaa in yani waxbana ka maqneen oo wixii dhan isku haysto marka waxaan dhihi lahaa qurbaha yani annaga malihin halkaan aan leenahay halkaana runtii aad u qurux badan tahay wax naga maqanna ma lahan ciideennana haddana midda kale markaa qurbaha ku nooshahay oo dhul gaala aad dhex joogtid waxaa waaye yani waa dareemaya laakiin saanoo kale ma u dareemayso oo dadkii o dhan soo wada baxayaan dadkii o wada ciidayaan marka aad u qurux badan tahay feelingka macnaha waxaan dareemayno inaba caadi maaha wax la qiyaas kara maaha ma hadda ma usoo wada guuri laakiin indhaynaan sameynaynay iyo familkii in dadkii ay bartaan ayaga marka hadda ugu horeyso anaa naftirkeena waqti badan ka maqneen marka aad iyo aad macnaha waxay leeyihiin ayaga marka hore ka aaminsanaayeen waxay hadda arkayaan hadda waa yani waa iska iloobeen in mataqaanaa bigjar qaldan ay haysteen laakiin haddartaan wax walba haddana u baahnaayeen waa helayaan macnaha sida xayaad market oo kale hadii la aado haddana meesha hadday maanta imaadeen waxaa leeyahay wax dhan u dhammaystireeya andila Muqdisho hala imaado waxyaa laga cabsanin waa nabad magaalada aad u qurux badan tahay wax walba niyadaada ku jira isleedahayna oo u baahnaan lahayd inta ku yeelaan internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah ku hadal iyo IPTV ula socda receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal internetka guryaha ku shubo $25 oo hel internet xawaarihiisu yahay 20 megabyte per second iyo 200 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah ama ku shubo $30 oo hel internet xawaarihiisu yahay 30 megabyte per second iyo 200 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah internetka xafiisyada ku shubo $50 oo hel internet xawaarihiisu yahay 55 megabyte per second iyo 400 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah ama ku shubo $90 oo hel internet xawaarihiisu yahay 110 megabyte per second iyo 700 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah